hay'adda lacagaha yaryar ee dowlad deegaanka Soomaalida laanteeda magaalada Fiiq ee xarunta gobolka Erar oo aanu xaruntooda ku booqanay ayaa nooga warbixiyay qaabka ay u shaqeeyaan iyo waxyaabaha ay qabtaan. Cali Xasan waa madaxa hay'adda lacagaha yaryar laanteeda magaalada Fiiq. Waa kan isagoo nooga warbixinaya wax qabadka laanta. marxim kulay laantan Fiiq hay'adda adeegga lacagaha ee laanta Fiiq ama Somali Microfinance waxay u asaasan tahay si guud inay u adeegto dadka danyarta ah sida ay ugu sameyn lahayd dhaqaale marka laantan Fiiq waxay bixisaa dhammaan adeegii maaliyadeed ee loo baahnaa sida kaydka lacagta dagaalka la deposit gareysto deynta ay bixiso transferka ama lacagta xawaalada hello cash dhammaan adeegyadii maartay financialka loo baahnaa oo dhan bay bixisaa ee maaliyadeed laantan waxay xoog saartaa mar walba sida dadka danta yar shaqo abuur ugu sameyn lahayd ama dhaqaalo ay u sameyn lahayd sababta hadda laantan dadka bulshada ku noqon gobolkan bay hooyo u tahay laantan waxay shaqo abuur sameysay xagga diinta hadaan eegno dad tiradooda kor u dhaafayso 500 5200 iyo 18 ruux lacagta ay ku maalgelisay shaqo abuur ku sameysay waxa 170 milyan 170 milyan lacaga bay ku maalgelisay dhammaan waxaan dhihi karaa meheradaha magaalada Fiiq ka jira ama guri walba Fiiq kamida adeegga ay bixisay laantani way gaadhay waa dhinaca shaqo abuurka tusaale hadaan soo qaato dhalinyarada eega magaaladan ku nool inta badan hadda waxa jira taariib iyo waxaas in maartay laantan saraakiisha laanta ka shaqeysa qaybaha diinta u qaabilsan inay wacyigelin sameeyaan dhalinyartii la tash sameeyaan dhalinyartii la taliyaan isla markaa qofkii la keeno xafiiskii laantii lagu soo xidho shaqo abuur loo sameeyo kii baajaaj u baahan baajaaj loo iibiyo kii meel electric iyo waxa in loo sameeyo ama kuwan alxankii waxa loo sameeyo raba in alxankii wixii loo sameeyo kii meherad kala raba iyadana in loo sameeyo kulli si guud iyadana waxa kale laantana bixisaa dhammaan mushaaradada degmooyinka laantana bixisaa waxa kale laantana bixisaa adeeg hello cash oo adeeg aad loogu baahnaa oo ay tahay hay'adii koowaad ee asaasatay deegaankeena nidaam electronic in lacagta la isoogu diro iyadoo ruux wax ku iibsanayo ku dukaameysanayo ku ganacsi xitaa hadda in qabalayadii xitaa caanaha dadka caanaha keenayay in adeeg isticmaalaan sidoo kale waxay bixisaa adeeg la dhaho hello solar ama adeeg electric meelaha uu electric u gaadhin inay electric u sameyso solar u sameyso si tartiib ruuxii uu helo si adeeg koronto dhameystiran u helo sidoo kale waxay laantani bixisaa oo si guud u bixisaa dhammaan shaqo abuurka deynta wareegta la dhaho dhalinyarada loo sameeyo hadda laanta waxa qorshaysan sanadkan 2013 inay bixiso inay shaqo abuur ku sameyso lacag 200 milyan lacag 200 milyan 10,000 oo qof inay shaqo abuur ku sameyso marka si guud laantan adeegyada bixiso waa sida way kulli adeegan hello cash xagga network inta badan waxaan ku xidhanaa ku shaqeynaa waa Ethio Telecom network-keeda saadarteed haddii cilad ku timaado network-ka guud ee wadanka ay cilad ku timaado kulli systemka uu yaradkaanaya hadda laakiin dadaal dheer oo xafiisku sameeyay anaga maadaama inta badan share naga dhaxeeyo telega mar walba haddii adeegii cilad ku timaado automatically isla markaaba waa inaan gaarsiino telegi aan ogaana sababta keenaysa in ciladu cuslaato kulli taas si guud muddo 7 bariya way jirtay culayskaasi dhammaan ama ha haato hello cash ama electronic kala bahaate mobile bank oo dhan culayskaasi wuu jiray hadda laakiin 7 maalmood ka bacdi jawaab laga bixiyo hadda adeegii si caadi ah ku soo noqday marka shaqo abuur aan leeyahay madrasa ma shaqo abuurku waa ruuxa in loo sameeyo ganacsi oo bilaabo marka horeysa anagu waxaan xoog saaraa dadka la dhaho buur active dadka tabarta yar isla markaana shaqeysan kara ilaahay dhaqaale ay ku shaqeystaan ma haystaan laakiin maskaxda iyo xoogii bay leeyihiin qofka noocaas kala maalgelin marka uu sameeyo muxuu keenayaa
kow inuu noloshiisa ku dabaro nolosha qoyska ku dabaro salahaanta haddaan soo qaato magaalada waxaa jirta hadda marka u horreysay xafiiskan la furay 4,000 baa laga bilaabay hada dadkii 4,000 laga bilaabay hadda waxay marayaan wareegii 7 wareegii 8 100,000 200,000 300,000 ruux kaliya inuu qaato in maalgelin loogu sameeyo waxaa jira dadkii 4,000 ka bilaabay hadda iska daa inay family-ga dhaafaan dadkii kale qaraabada ehelka iyagu laftooda inay shaqo abuur sameeyaan meerada hadda waxaan naqaanaa 4,000 ka bilowday hada laakiin iyadii shaqo abuur sii sameeyso marka waxaan oran karaa xagga deynta ama xagga shaqo abuurka guul weyn baa laga gaaray ayaa shukri nabad TV magaalada Fiiq ee xarunta gobolka Erar